dadna sitiin shaqaalaha ka socda Eastern TV marka uu ka warramo Adar International Hospital horta waa teaching hospital jaamacadda Adar Medical University weeyaan sideeda teaching hospital markaan lahayn ardayda kuwa u dhiga ee master degree-yada wata ayaa halkan ka howlgala runtii oo taasoo u sahlaysa ardaydu in macallinku maadaama halkan uu joogo markii uu xanuun arkaba si toosa ugu yeeri karo oo kala qayb gali doona xanuunkaasi go-aanka gaaritaankiisii oo practical fara badan si ay ugu helayaan moogtay isbitaal ahaan markaan ka warramo isbitaalku qaybo badan buu ka kooban yahay oo waxa kow ka ah qaybtii daaweynta guud ama internal medicine waxaa laan lahan ayaa kow ka noqonaya oo dhakhtar suuriyaanihi uu joogo oo master weliba wataa moogtay intermist uu joogo sidoo kale waxaa jooga dhakhtar orthopedic lafaha ku shaqale waxaa kaloo dheer nin shaybaarka medical laboratory jooga ayaa sida jooga ka qaybta haweenka gynecostetrics isna waa suuriyaan weeyaan marka waa 4 suuriyaana iyo mid ethoobiyan 5 qof ayaa hadda ila joogta hal midna waqtigii fasaxa ahaa ayuu ku maqan yahay oo dhowaan uu iman doonaa waa kii qaliinka guud ku qornaysna weeyaan oo bishii fasaxa ayuu ku maqan yahay marka guud ahaan 5 qaybood ayay horta inta importantka imikii aan saarnaay waa 6 qaybood oo mid baa maqaman ka wadaay ayay jirta runtii wayna wada shaqeeyaan waxaana bilaabeen isbitaalkani markii aan jaamacadda bilaabay si ardaydii practical fara badan u hesho waayo anigii adoon mooyaane wax isbitaalada gaar ah leh oo ardayda practical ay ku qaadato Soomaaliya oo dhan iyo Somaliland markaan ka hadlayo ma jirto amadi isbitaal u gaara malin hargeysa isbitaal u gaara malin jaamacaddu waad kaa guudin baa la tegaa marka ugu horreynba si practical badan ardayda u hesho ayay ujeedada u weyn een isbitaalkan oo aasaasay waa jaamacadda 2017 baa aasaasay isbitaalkana 2020 ayaa kow ahayd markii maalintii horeysay ee isnaan bilaabay oo 3 sano ayaa imika u dhamaatay oo January 2020 ayay markaan bilaabay halkaa fariinta waxaa kulley ka cad inay tahay adow jaamacad adow mid ay dheer tahay hospitaal gaar u ahesho waa ardaydii si ay practical badan u hesho ayuu cabdiraxmaan jaamacadii u sameeyey dhaqdhaqaaq waayey ninkii xukaanka ama bulshadii reer awo guud ahaanba imikana daawanaysa ka hospitaal ahaan adeegyada bixinaya dhakhaatiirta fadhiista waa laga sheegay maxaa ina fariinta ka maraysa jaadkeedu ku fadhiisiin doona runtii dadkeenu dhibaatada haysatahay marka hore in ay wax kale ku daalaan baa laga yaaba oo qofkiiba heer dambe maraya lagu keeno wax ka qabashadiisiina ay adag tahay ama maahiyo koskii ku baxayaba u farabadnaanayo muddadii uu jiifayay dawooyinkii u qaadadii marka loo eego marka dadweynuhu maadaama isbitaalka qaybo badan uu ka kooban yahay oo takhasusyo kala gaar ah uu leeyahay inay si cirbiya u yimaadaan si xanuunkoogii sida ugu dhaqsiya badan loogu sheego oo masalan inankan internal medicine xagga wadnaha aad buu ugu fiicay xanuunada inoogu badanina waa xinjirteena wadnaha gasho weeyaan marka qofkii bilowgii hore marka loo ogaado hargeysa u diraa oo toos ugu tegaa hargeysa haddiise heerkaba u gaadho dee waxa weeyaan intii halka laga fargaraynaya ama hargeysa oo si socday tiisi inay dhamaato ayman oranay marka dadweynuhu inay si joogta ah ula xiriiraan dhakhaatiir gaar ahaan tan baan noqota ama dhakhaatiir kale oo dawooyin badan weynayn magaalada joogtahay inay la xiriiraan si caafimaadkoodii loo taliyo walaadeen kusoo noqon cabdiraxmaan jaamacadii bulshada inta badan gobolka ugu garanaysaa Soomaali ayaa kulleyna wada qaadanaysa gobolada kala duwan iyo deegaanada kala duwan kasoo gala jeedo bal cabdiraxmaan jaamacadii iyo sharaxayna cabdiraxmaan dr cabdiraxmaan xamuudeen duuya oo ilaahay duuba oo sharaxaa u qooba runtii
أنا هرت واحد كيف كان جميع ما يجيب ودي وقصري وعن كان جميع أفريقيا سديتك ومدير لقيت شو almost أفرتن كاسن الله نعم لا صار معنا أنت أنا مرسم كشقة أيوم معنا واحد سيدي لو أنا قايس PhD برامج كذا public health أيام تخصص واحد سيدي بيخورن وان تخصص كسمي حمل بيجي تخصص لا بلا